Ilhaan Cumar oo ah gabar 36 sano jir ah una cararaysay inay ka mid noqoto aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa si weyn ugu guuleysatay doorashooyinkii isreebreebka ee ka dhacay Mareykanka kaasi oo lagu doonayay inay xubnahaasi uga mid noqdaan aqalka Koongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar waxay noqotay gabadhii ugu horeysay oo Muslim ah isla markaana Soomaali ah ee ka soo muuqata golaha Koongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa guusheedii kadib khudbada ay halkaasi ka jeedisay iyadoo ay garbaheeda taagnaayeen xubno kamid ah qoyskeeda gaar ahaan ninkeeda oo si weyn uga dhex muuqday ololaha doorashada. Waxay u mahadcelisay kumanaankii Soomaalida iyo sidoo kale qowmiyadaha kale iskugu jiray ee garab istaagay isla markaana heerka ay joogto soo gaarsiiyay. Ilhaan Cumar oo khudbada xasaasi ah halkaasi ka jeedisay waxay sheegtay inay tahay gabadhii ugu horeysay ee qaxooti ah ee Muslim ah ee ka soo muuqata golaha Koongareeska Mareykanka. Waxayna taariikh cusub oo ay ka dhigtay doorashooyinka isreebreebka Koongareeska Mareykanka oo markii ugu horeysay gabar Muslim ah gaar ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ay ka mid noqoto golaha Koongareeska Mareykanka. Dadweynaha halkaasi iskugu soo baxay ayaa si weyn u taageeray Ilhaan Cumar waxayna guusheedu uga dhignayd mid taariikhi ah.